الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إلهي cabsidiisu waxaa qofka adduunyadana uu ku liibaano ridaha ilaahay ku gaaro albaabada khayrkana loogu furo fitankana lagaga ilaaliyo aakhirana waa waxa qabriga iyo qiyaamo iyo janno iyo naarba lagu badbaado oo cabsida ilaahay baa lagu badbaadi karaa oo amal iyo qowl iyo qalbiba yeelata cabsida ilaahay allah inoo fududeeyo khudbadana waxay ku saabsan tahay rabaa inaan wax ka ilaahdo maalmahan warbaahintii iyo fadhi ku dirirkeen iyo hadal hayntu gabdhaha la kufsaday baa ugu badnayd warkii intaan aqriyay aan dhageystay in badan ma wada dhageysan kartid laakiin in badan oo dhageystayna falka in la cambaareeyo la dhaleeceeyo wax dhaafsan oo badani ma jirin nin magaalo dhaleeceeyo nin deegaan dhaleeceeyo nin dad gaar ah dhaleeceeyo iyo nin qolo cambaareeyaba warka cambaareyntuna waa calaacal nuxurkii waay warka marka la isku soo ururiyo waxba la ceebeeyay iyo calaacal weey laakiin wax badan ma arag oo ka hadlaya waxaan keenay si loogu gudbo in wax laga qabto ilaahay quraanka wuxuu inagu baray noloshu waxa ugu fiicani hadba si ilaahay yiraahdo way quraanka iyo diinta hadii la raacana nolosha hadba sida ugu nadiifsan ee ugu wanaagsan sharaf iyo noolaansho iyada laga helaa markii la dayacana dadku nin walba intuu dayacaa dabkiisu soo gaara waxa yaalay waa bilow ee dhamaad maaha wax meel dheer ka yimidna ma aha mira aan beeranay oo goosanayna waa in qori uu jabiyo qarjaftiisa kama naxay Soomaalidu tiraada haddaad geed qodaxa beerato mira qabow lama goosto haddaad dab shidato dab hareeraha ka shidana qabow iyo dhaxan la qabow la dabayl qabow lagama sugo dabkii aynu shidnay iyo dacartii aynu beernay baan kuleelkeedii iyo kharaarkeeda goosanaynaa wax meel fog inooga yimid maaha wax inagu mujtamaceena muslimka guud ahaan gaar ahaan mujtamaca Soomaalidu wixii iyagu ay beereen bay goosanayaan bini aadamku ilaahay markuu abuuray dhowr baahiyood buu ku abuuray baahi waa baahida cuntada iyo cabitaanka uu qabaan cunada iyo cabitaankii waa la tilmaamayo risiqa xalaashaas ay ku raadsan lahaayeen jidkeeda loo tilmaamay markay durbay inay taajiraan dariiq xaaraana ku raadiyaan noqotayna dib iyo balaayo badan bay kala kulmeen intii ku baabaaday markaan mirahoodii intaan soo qaadanay beeranayna waxay goosteen oo kala aan goosanay waayihii hore waxaan soo qaadanay warbaahinteenu oo telefishinada laga sii deyn jiray buug ahaanna loo aqrinayay filimaanta tuugada iyo dhaca iyo boobka iyo sida wax loo dhaco markii filimaantii adduunka lagu sii daayay tuugadii baa badatay isagii baa noqday macallin laga barto sida wax loo dhaco sida wax loo jabsado sida loo raadgato markaad wax jabsato adana raadkaaga loo qariyo qofkii ku dabagala sida la isaga celiyo waxay noqdeen musalsalaad la yixitay filimaanta xanaa oo inta cashiro laga soo barto suuqa iyo ganacsiga iyo dukaamada iyo dalka lagu fuliyay noqdeen tuugadii baa badatay niman kaarta badan baa soo baxay gruubyo ay soo urursaday dhacu waa ka farabatay hadda waxaa ilaahay kaloo baahi bini aadamka ku abuuray dareenka shahwada dariiq sax oo guur xalaal lagu gutana waa la ina faray dadka ha loo fududeeyana waa la yiri cidii ay awoodi waayana ilaahayna ha ka cabsado haddii kuleylka shahwadu ku batana ha soomaa la yiriyo jirkiisu dhacaanka iyo intuu ka yaraado soon ku dadaalo karkii badnaa ha isaga jabiyo waxaan inta ahayn waxaa la yidhi sultan iyo dawladi ciddii xarigga goosata ha madax jabiso
intaa kadib baa ilaahay waxaa inoo sheegay bini aadamku shahwadu way ku weynta dareenka uu cunnada iyo cabitaanka u qabo marar badan waxaa ka badan dareenka shahwada uu qabo saan munaasabaad kale ku sheegay waxaad ku garan haddii masaajidka iyo garoonku buuxo oo hadalku dheeraado oo in hurdooto in telefoon ku mashquulo inuu cajiso oo hahamsado miduu mid la sheekaysto hadday sheekadii xagga rag iyo dumar iyo xiriirkood u leexato dhammaan waa la soo wey kii hurda waa toosayaa kii wax ku mashquulsanaana waa soo jeedsanayaa dhammaan dareenkoodu hal mar buu soo laaban xataa kii murugaysnaaye caraysnaa isagoo qoslay oo dhoolla caddayn baad arki waxay tilmaamaysaa dareenka ay ku leedahay ee rabbi ku abuuray subxaanahu wa tacaala xaaladdii sidaa ahayd baa waxaa laynagu yidhi guurkii ha la qaaliyeeyo yaraanna yaan lagu guursanin yaraantu waa xilligay ugu badan tahay shahwadu walidaalika xaaraanta zinada lagu dhaco waa yeelku waa ka dembi badan yahay da'yar zina ku dhacday maxaa yeelay da'yarta wax dareenoo ka xoog badan oo riixii kalaa jira waa yeel iyagu sooba gaabiyey oo dhacaankiiba yaraaday xumaan fara badan unbaa riixaysee dareen xoog badan oo riixaya aan jirin wax kaa xoog badan oo ku riixaya iyo waxaan kaa xoog badnaynood adu jiidaysana waa kala dembi badan yihiin yaraantii waxaa la yidhi xilligay xoogga badnayd yaan la guursan guurkiina waxaa la yidhi ha la adkeeyo kharash badan iyo shuruud badan ha lagu xidho shahwadu waa duufaan biyoa wey waa la leexiyaayee lama xidho biyaha haddaad xirto iyagaa meel kala jabsan derbiyadana dumin duufaankii baa la yidhi ha la xidho marka la xidhayna dariiqay jabsan lahayd baa loo sallaxay warbaahintii oo hadda ka baxday dawlad gacanteed oo sharikadiyo mu'asasado tiifiyo furtay mar ahaan jirtay ee ka soo tagtay oo qof walbana fidinayo qaabilayana oo bahal yaroo telefoona nin walba gacanta ugu jira wuxuu raba ka fidinayo sawirkuu rabana gudbinayo videoguu rabana dhigayo kii la dhigana isaga qof ugu soo gelayoon cidna marti uga ahayn da'yartiina gacanta ku wada dhigeen dareenkooduna boqolka joogay baa waxa ugu badan ee baraha social mediaha la yidhaahdi iyo bulshadu ku xiriirtahay waxa ugu badan ee la soo dhigo iyo waxa ugu badan ee la fiiriyo iyo waxa ugu badan ee la commenti gareeyo waa rag iyo dumar wax ka dhexeeya sawir qaawan video qaawan qolyo wax samaynaya iyo website-yo wixiiba lagu practice garaynayo kanna waa la xiray darbigu jabsanayana waa loo duleeliyey waxaa ummaddii ku jira haddaba qolyo waxaa ka shaqeeyo ilaahay tilmaamay hadda ka hor markii qisadii ifkiga ee caasho lagu been abuurtay laga sheekaynayey baa ilahay wuxuu ku daray ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu kuwaan alla ka cabsina lahayn akhlaaq iyo dhaqan fiicanna aan lahayn ummaddanna bale iyo xuman la doonaya baa laga hadloo ina aladiina yuxibbuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantan foosha xun inay ummadda ku baahda jecel cadaab bay aakhara agtira ay ku leeyihiin haddaba dad waxaa jira ummadda ku dhex jira oo waxaa in la baahiyo jecel baa jira daawashadeeda commentigaraynteeda samaynteeda qaybinteeda hadalhaynteeda kuwa jecel baa jira si ay dhagahana caadi ugu noqoto indhahana caadi ugu noqoto dhaqankana caadi ugu noqoto maxay tahay ujeeddada ka dambaysa jidkii alleh in laga leexday doonayaan wayuriidu aladiina yattabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima leexasho weyn inaad leexataan bay rabaan kuwaa shahwada raacaya kooxdii ummadda muslimkaa ku dhex jirtay waxaa kaashaday albaabkii la xiray iyo iimaankii oo daciifay iimaanku hadduu daciifo waa alla ka cabsiga qalbigu daciifo ishu ilaahay inuu la xisaabtamaya xasuusteedii daciifto gacantu waxay qoraysa in malaa'ig qorayso oo lala xisaabtamaya daciifo carabkan hadlayaa iyo dikrigii ilaahay ku daciifo meesha kaalmadii ilaahay iyo malagii waa ka yaraanaya shaydaan baa wehel iyo lamaano noqonaya shaydaan muu malaynaysaa diin la ilaaliyo iyo sama iyo akhlaaq wanaagsan inuu ku talin muu malaynaysaa waman yacshu can dikri araxmaani dikrigii iyo xasuusta ilaahay qofkii ka jeedsadaayey nuqayid lahu shayطaanan shaydaan baan u diyaarinaynaa fahuwa lahu qariinun isagaa lamaaniya saaxiib u ah shaydaan inuu lamaaniya saaxiib u noqday
ilaahay xasuustiisii iyo cabsidiisii ku yaraatay dariiqii xalaashee shahwada laga soo xiray isagoo dabkiisa shahwadu meel kulul marayo kii xumahana loo soo bandhigoo bannaanka loo soo dhigay baa filimaantii reer galbeedka iyo wixii xumaayay samaynayeen waa horey gabdhahooda wada kufsadeen oo caadi ka noqotay gabadhiisa xataa intuu meel ku xiro inuu ka ilmo dhalo inuu gabadhiisa kufsadaay dadka galbeedka jooga waraysta waa naadir maalin warbaahinta aynan ku qornayn nin gabadhiisa kufsaday ama wiil walaashii kufsaday galbeedku waa naadir caadi bay ka noqotay nabiguna hore wuxuu inoo yidhi latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci ummadihii idinka horreeye oo looga jeeda yahuud iyo nasaara jidkoodaa taaka taako iyo dhudhudhudhu raacidaasaan riwaayad ba waxay ku dareen hadday dhacdo iyaga mid ka mida hooyadii inuu fara xumeeyo kuwa idinka ka mid ah hooyadu fara xumayn doona markii filimaantii tuugadaha aan ka soo qaadanay tuugada ay nagu badatay filimaantii jinsiga ahaa ee rag iyo dumar ee xishood la'aanta iyo akhlaaq la'aanta ahaa markaynu soo wada guurinay wada boosti garaynay oo wada daawanay oo la wada sheergareeyey oo la wada kumanti gareeyeyna wakaa waxaa dhacaya mirihii baan goosanaynaa dacartaan beeranaynu daaqaynaa waxaani iskama imanin habeen iyo maalinna dadka kuma dhalan intaa waxaa u dheer waalidkii iyo goobihii waxbarashada ee da'yarta waa jahayn jiray garashadooda iyo garaadkooda kubcin jiray oo kor u qaadi jiray waxa xun ka waanin jiray waxa wanaagsan iyo mustaqbalkooda u sheegi jirayna xilkii iyo mas-uuliyaddoodii bay gabeen xil iyo mas-uuliyad baan gabnay amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar baa yaraaday xaafadaha la tuban yahay khayr laysma xasuusinayo suuqaa jidkaa la marayaa jirdiinooyinkaa la fadhiyaa ilaahay aan ka cabsanna lama xasuusto dukaamadii iyo ganacsigaa la dhex hordayaa shirar iyo qabaa'il iyo siyaasad baa loo dhexyaacayaa wax ilaahay isxasuusinaya oo cabsidii ilaahay da'yar iyo dad kale garoomaa ciyaaro la tegayaa alla isxasuusintii baa yaraatay iimaankii iyo taqwadii iyo dikrigii qalbigii wuu daciifay waalidkii iyo hay-adihii waxbarashadu xilkoodii xasuusinta iyo tarbiyayntii iyo ka warqabkay gabeen xakamayntii dawlad iyo xogta ay lahaan jirtay baafaraha ka baxdo nin walba gacanta u gashay jidkii xalaasha ahaabaa la xiray oo la soo adkeeyey wixii xumaanaya filimaantoodiina waynu isu gudbinay inaan cabaadno oon qaylinno oon calaacalaaye gar iyo garawsho ma laha innagu inaan beerno wixii soo baxayna ka cabaadno innagu inaan fidinno maxay natiijada u dhashayna aan dhahno innagu ubadkii iyo ilmihii inaan dayacno kadibna maxay waxaa u sameeyeen aan dhahnaaye iyadoo ay khalad tahay laakiin garawshi iyo gar ku yeelan mayno haddii xilkeenna kaalin walba ciddii lah gudan lahayd wixii dhacaayay wuu yaraan lahaa wax yaryaroo dhacoo naadir ahoo ama qof la dila ama xaalado dhacana aadamahana weligood way jiraya wayna jiri doonaan laakiin waxaan maxaa keenay dacwadii iyo khayrkii iyo isxasuusintii baynu yaraynay waxaan maxaa keenay waxbarashadii iyo waalidkii baa xilkoodii gabay waxaan maxaa keenay dawlad iyo maamul dadka xakamayn lahayd ama ciddii samaysay cidbin lahayd baa gacanteeda ka baxday oo waxaa la yidhi xorriyaadkay ku jirtaa waxaan maxaa keenay innagu waxaan qurunka een telefoonnadii isugu wada dirayno baa dadkii dareenkoodii iyo waxalba kiciyey dariiqiina u furay maxaa keenay kii xalaasha ahaa baan xidhnoon qaaliyaynay natiijadu waxaan maxaa keenay fa bimaa kasabat aydiikum waay waxaynoo kasbannay waa ilaahina subxaanahu wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid inaan wax ka duuna sooma rabno wax ka bedella sooma doonayno dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ummadda haddii waxaa in wax laga qabto la rabo waxa keenay inaan wax ka bedelo wey ilaahay ummad kama bedela xaaladay ahayd ilaa iyaga isbedelka uu ka yimaado ilaa inagu tarbiyadii aan soo xakamayno ilaa dariiqii xalaashaha aan fududayno ilaa da'yarteennii iyo tarbiyadii aan ka warqabno ilaa dacwadii iyo diintii dib aan ugu gargaarnaayey waxaas iyo wax ka xun baan sugaynaa waxaan gacmaheennu inagu dayacnay inaan dad kale ku eedin midho xunu beerannayna dacarta inoo baxday inaan dad kale eedayn waxba reer galbeedna yaan la eedaynin waxa soomaaliga lagu baahiyey
innagun baa baahinay ama soomaali muslin ahaw ama soomaali gaala ahaw ama mid fiican noqo oo si khalada uga dhacday ama ku xumaatadaa ku raaxaysanoo yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu noqo shaydaanka ka adeegayna dee shaydaantan iyo aadam baanan inuuna wacdiyo wanaag nagula taliyana aynaan kaba sugayninoo ina shayطaana lakum caduwun faاtakiduuhu caduwan baa layna yidhi haddaaban qariin iyo saaxiib ka dhigannaaye dee waxun inoo horseedo wixii laynooga digoon inagu isdayacnay wey ilaahay aynu ka cabsanno dadkeenna iyo ubadkeenna aan ka warqabno waxaan aan fidinayna iyo xumaatadan la qaybinaye warbaahinta iyo telefoonada aan ka dayno ama duqay ahaada ama da'yar ahaada ama rag ahaada ama dumar ahaada ilaahay ka cabsada dadka intii shahwada lagu kiciyo dadkiina la hor wado maxaad u derderteen laleeyahay waxaan dembiga la wada aan ka dayno dumarkii qaawanaantii ha iska daayaan qaawanaantan la qaybinaya ha la daayo dumaradan iyo sawiradan qaawanaya waxa xunee laysu qaybinaya ha laga daayo waxa iyo wax ka xun bayna dhexalshiin markaan filimaantoodii qaadanayna falkoodii baynu ku dareenay hadda aynu wadnaa ilaahi subxaana wa tacala ummaddan khayrka allah ku soo dabaalo inta samaha wadana allah garab siiyo innagana iimaanka iyo towbada allah ina waafajiyo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر